ma u safraysaa dalka dibaddiisa oo ma doonaysaa inaad ula soo xidhiidh ehelkaaga iyo asxaabtaada dalka jooga habka ugu fudud haddii jawaabtaadu haa tahay aan kuu sheego adeeg aadan ka maarmayn mar walba oo aad safar gelaysid adeegaas oo kaa caawin doona inaad lambarkaaga dalka dibaddiisa ugu isticmaashid si caadi ah sida inaad dalka gudihiisa joogtid oo kale adeegaasina waa adeega mushaax haddaba muxuu yahay adeega mushaax waa adeeg kaa caawin doona in lambarkaaga Telesomta aad dalka dibaddiisa ku isticmaashid adeegani wuxuu ku sahlayaa in dadku ay ka soo wici karaan lambarkaaga adoo xataa dalka dibaddiisa ku maqan adiguna sida si lamid ah aad cid walba wici kartid oo dalka gudihiisa joogta haddaba adeega mushaax muxuu ku sahlayaa adeega mushaax wuxuu ku sahlayaa wicitaanada fariimaha iyo sidoo kale saadka waxna waad wici karaysaa waana lagu soo wici karayaa fariin waad diri karaysaa waa lagu soo diri karayaa saadkana lacag waad diri karaysaa waana lagu soo diri karayaa dollar iyo cash ku doonaha noqday haddaba sidee loo furtaa adeega mushaax marka aad rabtid inaad furatid adeega mushaax oo dalka gudihiisa aad joogtid fadlan garaac lambarkan gaaban xidig 166 gees kadibna dooro lambarka oo ah furo prepaid roaming sida fududna waxaad ku furatay adeega mushaax haddii aad rabto inaad furato adeega mushaax qaybtiisa postpaid-ka waxaad timaadaa xarumaha shirkadda Telesom si lagugu furo haddii aad joogtid dalka dibaddiisa oo aad rabtid inaad furatid adeega mushaax fadlan fariin noogu soo dir baraha bulshada shirkadda Telesom lambarka aad rabtid in lagu furo adeega mushaax sida ugu dhaqsiyaha badanna waxaa lagu furi doonaa adeega mushaax haddaba marka lagu furo adeega mushaax oo aad tagtid dalkii aad u socotay sidee baad ugu buuxbuuxsanaysaa mobilkaaga adeega mushaax si kaarkaaga uu kugu shaqeeyo adoo waddan kale jooga haddaad sidatid mobil Samsung ah furo settingkaaga deedna dooro meeshay ku qoran tahay connections kasii dooro halkay ku qoran tahay mobile network deedna kasii dooro halkay ku qoran tahay network operators halkaa waxaa kaaga soo baxaya shirkadaha ka hawlgala waddanka aad joogtid waxaadna dooranaysaa mid ka mid ah sidaasna waxaa kugu soo dhici doona ateenada kaarkaaga Telesomta saasna waxaad ku isticmaali karaysaa adeega mushaax iyo dhammaan adeegyada kaarka Telesomta uu ku qabanayo haddaad iPhone sidatidna waxaad galaysaa settingkaaga deedna kasii dooro halkay ku qoran tahay cellular waxaad kasii dooranaysaa halkay ku qoran tahay network selections kadibna halka automatic ku qoran tahay off garay markaad off garaysid waxaa ku soo bixi doona dhammaan shirkadaha ka hawlgala waddanka aad joogtid mid ka mid ah dooro markaana waxaa ku soo dhici doona ateenada shirkadda Telesom saasna waxaad ku isticmaali doontaa adeega mushaax iyo dhammaan adeegyada ay ku qabanayso shirkadda Telesom haddaba waa imisa qiimaha adeega mushaax waa laba qaybood qaybta koowaad waa qaybta prepaid-ka caadiga oo sida caadiga ah lagu shubanaysa adigoo garaacaya xidig 221 gees ama xidig 881 gees qaybta labaadna waa qaybta postpaid taasoo macnaheedu uu yahay bil walba in lagugu soo dilci doono bisha intii aad isticmaashay oo ku hadal ah saasna aad ku bixin doontid intii lagugu soo dalacay bishaas oo ku hadal ah haddaba halkeebaad nagala soo xiriiri kartaa haddii ciladi kaaga timaado adeega mushaax adigoo dalka dibaddiisa jooga waxaad nagala soo xiriiri kartaa dhammaan baraha bulshada shirkadda Telesom adigoo fariin noo soo diri doona cilada ku haysana noo qeexi doona sida ugu dhaqsiyaha badanna ciladaada lagugu xalin doono maanta wixii ka dambeeya bixin adigoo aan furan adeega mushaax ka dhiga mushaax wehelkaaga safarka